السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي وناكسن دمانتين با خيارتا إذا حاودا نقل ساعتها كسر دوبادا برنامج كيني حولشada keedka oo toddobaad kasta ka daawataan muqbaahiyaha telefishinka caalamiga Home Cable TV meel kasta aad joogtaan iyo hawl kasta oo haysan ba waxaan dileeyahay jimco wanaagsan oo wacan barnaamijku waa barnaamijkeena xulashada keedka waa tahay barnaamijkeena xulashada keedka waxa toddobaad kasta aad ka daawataan Home Cable TV oo aan ku soo qaadano taariikhaha kala duwan ee soo martay dalka Soomaaliland oo dhamaanba dadweynahan dib u xasuusino marxaladii kala duwanaa iyo taariikhdii kala duwanaa si ay telefishinka caalamiga Home Cable TV jimco kasta uga daawadaan qodobkeena ugu horeeya barnaamijkeena xulashada keedka toddobaadkani waxaan idin soo qadimi doonaa Marwaadna Aadan Ismaaciil oo iyadoo kamid ah haweenka aqoonyahanka ee farakutiriska ee ka jira dalka Soomaaliland inta badan ka qayb qaata sidii dalka Soomaaliland ay marwan beesha caalamka ugu heli lahayd aqoonsi buuxa ayaan toddobaadkani idin soo qadimi doonaa sanadkii 2003 ayay Marwe Aadan Ismaaciil oo iyadoo ahayd wasiirka qoyskii arrimaha bulshada ee Soomaaliland waxay ka qayb gashay laba shir oo caalami ah oo ka dhacay labada dal oo kamid ah dalka Belgium iyo Talyaaniga halkaas oo ay ka jeedisay khudbad aad u xiiso badan ay markay dalka ku soo noqotay gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa waxay ka warbixisay kulamadii kala duwanaa iyo shirarka caalamiga ah ee ka qayb gashay ayaan idin kala bixi doonaa idinkiyo aadna daawasho wanaagsan Marwaadna Aadan Ismaaciil waxay ka mid tahay aqoonyahanka Soomaaliland ee sida aadka u jecel in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay bulshada caalamka ka hesho aqoonsi buuxa waxayna Marwe Aadan Ismaaciil iyadoo aan xil hayn iyo iyadoo xil haysaba ay ka qayb gashay shirar caalami ah oo lagu casumay waxaana shirarkaasi ka jeedisay khudbado ay ku sharaxayso qarannimada iyo goonistaaga Soomaaliland iyo sida Soomaaliland wax u qabsatay haddaba Marwaadna Aadan Ismaaciil ayaa sanadkii 2003 oo ahayd wasiirka qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxay ka qayb gashay laba shir oo caalami ah oo ka dhacay wadamada Belgium iyo Talyaaniga wasiiradna Aadan Ismaaciil ayaa markii dalka dib ugu soo noqotay waxay ka warbixisay waxay kala soo kulantay labadii shir ee ka qayb gashay ayaan daawadeeda kala bixi doonaa ee daawasho wanaagsan safar baan ugu dhawaan ka imid dowrad baan ka imid waxaan ka imid laba dal kii ugu horeeyay wuxuu ahaa magaalada Brussels waa caasimadda dalka Belgium waana xarunta ururka Yurub waxaan kaga qayb galay aniga oo la igu marti qaaday shir halka ka socday inaan kaga qayb galo aniga oo ah wasiirka horumarinta bulshada iyo arrimaha qoyska ee Soomaaliland waxaa sharaf weyn ii ahayd in aanu dhowr iyo 10 haweena oo ka kala socda dalalka Afrika iyo Yurubba qaar ay ahaayeen wasiiro qaar ay ahaayeen qaar deputaatiyaal kamida ururka Yurub in anigoo ah wasiirka Soomaaliland aan noqday qofkii lagu sharfay inaan shirka gudoomiyo Somaliland wasiirka socda oo aniga ah ayaa shirkii ururka European Union-ka ee magaalada Brussels gudoominayay waa sharaf weyn waxaana kale oo ay ii ogolaadeen inaan war-saxaafadeed halka ka jirayna inaan warbixin ka bixiyo anigoo ka hadlaya wadankayga Somaliland jiritaankiisa xornimadiisa sidoo Ingiriiska uga qaatay kifaaxi uu soo maray haddana dib u la soo noqoshadii maamulkiisa wanaag ka jira iyo sida aanaanu anagu dhibaato dalalka jaararka iyaga iyo walaalaha iyo hareeraha naga xiga aanaanu wax dhibaata iyo wax colaada iyo wax dibindaabiya midnaba aanaanu ugu haynin aanu jecelnahayna in sida yada iyaguna ay mar nabad iyo helaan iyo deganaansho waayo mar walbaba qofka Soomaaliyeed ee dhiig Soomaaliyeed xiddidiisa ay ku jiraan ee dhibaato soo gaadho waa qof annaga naga mid ah qof Soomaaliyeed oo ay dhibaato soo gaadhay marka Somaliland kuma faraxdo mana jeclaysato in walaalahood meel kasta ay joogaanba inay dhibaato soo gaadho marka sharaf weyn bay taas u ahayd safuurana waan idin hayaa aan idin kala aan idin la qaybsan doono
waxaa kaloo yar markaa ku xigtay waan ka imid shir labaad oo geeska Afrika ah ayaa lagu qabanayay jaamacadda Rome ee dalka Talyaaniga runtii warwar weyn baa taayiga hayay waayo dalka Talyaaniga kalgacayl badan oo aan hore uga arkayo Somaliland ay hayaan hore uma arki jirin marka warwar baa iga hayay oo dabaka warwar baan ka qabay marka aan shirka ka qayb galo waxa aan kala kulmi doono iyana runtii sharaf weyn waxay ahayd inaan ka dhiibay warqad title-keedu ahaa Somaliland Peace, Education and Economic Development warqadda aan ka dhiibay waan idin la qaybsan karaa marka nuxurkii ku jiray waad kala soo bixi kartaan waxaana ahayd warqad aan ku tilmaamayo Somaliland nabadda si u soo gaadhay inay dalka gudihiisa ay shirarkeedu ku qabsan jirtay nabadeynta hadday noqoto Burco Sheekh maxaan ku dhahaa Boorame dastuurkii loo codeeyay kala hore odayaashii guurtidii in Somaliland halka maanta ay joogto ay iyadu halka is soo gaarsiisay hubka dhigidii ciidamadeeda maxaan ku dhahaa wixii in soo gaarsiiyay halkan maanta aynu ku faanayno in joogno waxyaabihii talaabooyinkii soo gaarsiiyay ayaan warqadda aan ku qoray waxaan kaloo dhoolatusiyadna ay ahayd inaan ku faano in 780,000 oo arday maanta iskuulada Somaliland ay dhigtaan wiilal iyo gabdhaba leh dugsi hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadba aynu leenahay taasna waxay ahayd mid lagu faani karo marka warqado badan oo sawirro badan waan geeyay oo ay ka mid yihiin qoraallo badan oo wadankeena laga qoro maxaan ku dhahaa diiwaano badan oo ka mid yahay kan maxaan ku dhahaa Chamber of Commerce ka oo ay ku tusaalooyin badan ay kaga jiraan bayac mushtarka iyo sharikadaha ka socdo iyo warshadaha jira iyo waxa aynu dhoofino iyo waxaynu soo gelino waxyaabahaas oo waxyaabaha marag fur u noqon kara Somaliland inay de wadan nabad tahay oo bayac mushtarka inta la eeg uu ka socon karo waxa iyana markaa aan ku dheeda aan geeyay sawiro aan ku tusayay Somaliland tii aanu dhaxalay 1990kii iyo Somaliland maanta oo sawiradii maxaan ku dhahaa theaterka cistalkii umulaha ee cawli curyaane dunsana adigu 2-3 meelood oo dunsana meel dunsan bal lama helo Somaliland intii waa la wada dhisay dirqi baan dhowr meelood ku soo helo ku sawiray sawiradaas aan geeyay waxaan kaloo markaa iyaguna aan sawiray isla maalintii aan tagay horteed hodheelada waaweyn Mansour Ambassador daaraha waaweyn Hargeysa laga dhisay bangalooyinka waaweyn kuwaasna waan sawiray cisbitaalkan umulaha waan sawiray marka Hargeysadii hore iyo Hargeysada maanta sawiradaasna iyagu dhowdu waan bandhig ahaan baan u tusay farxad weyn waxa iyana ay ahayd inaan shirka kaga qayb galay wasiir Somaliland oo title-ka ama magacaas aan ku fadhiyay shirkaas oo martiqaadka inuu ka ku saabsanaa iyana waxa farxad weyn ay ahayd dad kale oo ka socda Ethiopia dalka Ingiriiska qudhoodu inay si badan ugu doodeen qadiyadda Somaliland warbixino wanaagsan oo runtii anigu aan aad u jeclaystay oo waxyaabo afkaaga ku yara qalooca laakiin si afka walaalka ku quma baa jira oo anigu haddii aan oran lahaa inaan wadankayga faaninayo oo kaliya loo qaadan lahaa laakiin se marka qof aan Somaliland u dhalanin oo waxyaabaha wanaagsan naga sheego aad ugu tiirsanay Professor I.M. Lewis baa kamid ahaa dadkaas Professor Karo jaamaci ah oo ka socda dalka Ethiopia kamid ahaa marka waxaan jeclaystay in aan idin la qaybsado warbixinta yar ee kooban idinna sheego in Somaliland maanta ay ka mid tahay dalalka Afrika ku faanto haddii aynaan wadankeena siduu yahay sheegin oo aynaan ka qayb galin adduunka shirarka ka socda wadankeena aqoonsigiisa uu raadaya laakiin waxaad moodaa maanta in aynu
in Somaliland la garowsan yahay inay ka duwan tahay waxyaabii rayigii laga haystay Soomaalida inay nahay dal nabada inay nahay dal u bisil maamul wadankiisa inuu maamusho Somaliland ay runtii tahay wadan Afrika ku faani karto kelmad yar oo marba aan ku daro warbixinteeda waxaan radaa haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba Somaliland is a rare African miracle waa mucjisad weeyaan Somaliland iyadoo xoolihii laga xiray oo la burburiyay oo sidaan ogaa loo galay inay haddana maanta ka madax sarreyso dalal badan oo la aqoonsan yahay waa mid Ilaahay loogu mahadiyo weeyaan aniga horta waxyaabo badan baa iga kordhay oo fursad waxaan u helay in dhowr boqol oo qof oo weliba jooga meel baarlamaanka Europe waa meelaha adduunka laga maamulo weeyaan reer caamka meelaha dheelitira powerka labaad weeyaan ee marka Mareykanka laga yimaado powerka Europe weeyaan marka in qadiyada Somaliland aan u helo fursad aan ka dhiibto waa mid aanan filaynin shir baa ka qayb galaysa waan salaha laakiin se gudoominta shirkana waa lagu ogolaan war saxaafadeedna waad ka dhiiban intaas oo parliamentarian oo u dhashay dalal badan oo Europe ka tirsan ayaana martiqaad maalin walba kugu sharfi doona waayo waxay ii qaabileen si VIP ba ii qaabileen oo waqtiga maxaan ku raadinaa la qadeynayo iyo waqtiga maxaan ku raadinaa birrifta meel gaar oo VIP ga bay u qaabileen hoteelka ay dejiyeen wufuudda kale mid ka duwan bay dejiyeen Renaissance Hotel bay dejiyeen sida ay ii qaabileen oo kaliya ayaa horta sharaf weyn wadankayga u ahayd iguna qaabileen wasiir ahaan wasiir gabadh waxa joogtay wasiir Senegal joogtay wasiir Masriyada joogtay aniga bay haddana igu sharfeen inaan shirka gudoomiyo marka sharaf weyn bay ahayd waxaana weeyaan fursadahaas oo kale ayaa haddii lagu sheegana waa la sheela aynu ka dhiibano rayigeena oo aynu muud ka sheegno wadankeena wuxuu yahay fursad weyn bay ahayd iyagana waxa ay u baahnaayeen ama ay dareensiiyeen inaanay hore war ku filan ka helin Somaliland oo isku duuduubka Soomaalidaas wararka Soomaalida laga maqlo iyo meelaha ay ku shirshadayaan iyo dalalka ay tagtagaan iyo shirkii 16aad ay u fadhiyaan iyo maxaan ku raayeen warlords ka haysta ee kursiyada ku dagaalamayo raygaas uma Soomaalida oo dhanba laga haysta marka inay jirto ummad Soomaaliyeed oo kale oo ka duwan oo ka maamul wanaagsan oo ka nabadgelyo wanaagsan oo ka aqoon badan oo ka sharaf badan inay jirto wax lagu faano weeyaan waa tahay waxaan jecelahay inay aad uga hesheen qodobka iyo barnaamijkeena xulashada kaydka aan toddobaadkani ku soo qaadan number 1 Aadan Ismaaciil oo iyadoo ka qayb gashay shirar caalami ah oo ka dhacay wadamada Belgium iyo Talyaaniga sidii ay halkaasi ugu soo bandhigtay gooristaaga Somaliland iyo inay Somaliland tahay qaran buuxa waa tahay qodobkeena ku xiga barnaamijkeena xulashada kaydka ayaan idinku xigsiin doonaa waa majaajilo aad u xiiso badan oo iyadoo la magac baxday saddexba isu faanta waxana iyagu halkaasi inoogu soo bandhigi doona fanaaniinta u dhashay dalka Djibouti ayaan idin kala bixi doonaa daawasho wanaagsan ماشان يا طنابة ماشان يا وحالي وامحي ما أفقى لي واللحية طبنا ما تشيل اللحية طبنا واللحية طبنا هرتا يا إنوجي وهرتا السلام عليكم ما كون رسالة الجوري قالين يا صوغ رسالة واسدي هذا إيه جوري حتى اللي أنا لقى كم رمية سلام ديران فوقو داشني مدلنا هاي ما داوين دكتور وركا صدقات kuwii laynaga dheegay ka dhamaaday adduunka dhaxalkii aan ka reebnay taariikh weey dignayd oo qarniya isku dhiibay mar haddaad dababteen dhallaankiinuna moogay ubadkay dhalayaan yaa ka dhaadhicin doona yaa kallam caluw يا كذا اللي عندنا dhaqankii cuntama ayuu dhallaankaagu sugaa aan balloodhu tiyaay waqtigii ina dhaafay iyo muudigii ina dhaafay iyo
waqtigii dukanaa dadka ha ugu dhawaaqin ها sidaasaan ku leeyahay waxaan ku idhi war bal dhegoolahan eega iftiinka dhalanaya dharaar weynta ka ooyo gudcur dhaayaha beelay dhafarku xoqanaya sidaan uu le miyuu dhoohan yahay ninku mise waxba u dhiman qaaryaanahay dhagaysta waata eeyaa odagaagan dhurmaayo dhagihii naga qaadayo haddaad dhoombi yahayd ilaa xaggeela jiraayay dadkani waa dhal magaalo dhaqankaad fidinaysa kama dhaadhicinay sida miyigii ula dhaw misal adigu baari jirtay maala dhal magaala waa la ilbaxay ya dadka dib ha u celinin waxa weeyi habeen yahow waxa weeyi idinkaa dhumbahayo dhalanteedka run moodee xididkii dhismaheena dhulka loogu aroorshay aan ku dhaadan lahayn haddaad ceeb ka dhigteen markab dhoof qabanayo ku dhaqaaqay orog qofka dheegga ka raacayow adaa dhowrku kudaali dhaqdhaqaaqa oroob dhuunigii aad cunaysiiyo baabuurkii daldhaweeyiyo dhar baa kaaga yimaado dhaqaalaad ku qabtaaday ha dhaliilina waa runtii kuwii kale waa dhaantaaye anu waxaanan ku hadlayaa waa maxay ina ma maraysaa adiguna waxba batiido ma dhaantid adna kuwii hore waad ka dartay waxa weeyi ukaadi waan iska qaba ukaadi waxaad qabto waxma qabtid waxaan ku yidhi aniga sheeg baa la yidhi ku dagaalan layma odhan sidaa wey annaga kugula dagaalamaya iskaga tag alla muxuu qiiq isku qariyay ma arkaysa dharaartiina waa sheekh habeenkiina waa shuqultaan ilaahay rasuul laa ku odhanin waxaa la yidhi waa sheekh weliyullah iyo dumarka xanaaneeye oo yaa ku yidhi ya saasaa la yidhi waa tahay waxaan jecelayn in aada uga hesheen qodobkaasi ee barnaamijkeena xulashada kaydka iyo majaajiladaasi aan idinka soo xulnay xulka kaydka ee telefishinka caalamiga home cable TV meel kasta aad joogtaan iyo hawl kasta haysaanba waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan oo wacan qodobkeena saddexaad ee barnaamijkeena xulashada kaydka ayaan idin soo qadimi doonaa sanadkii 2005 ayaa waxa magaalada Hargeysa ka dhacay shirweynihii labaad ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xisbiyada qaranka Somaliland iyo marti sharaf kale Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo isagu waqti ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa isagu madashaas waxa uu ka jeediyay khudbad aad u xiiso badan oo uu kaga hadlayay xaqqa dastuuriga ah ee saxaafadda iyo xisbiyada qaranka Somaliland ay leeyihiin ayaan idin kala bixi doonaa daawadayaal ee daawasho wanaagsan sanadkii 2005 ayaa waxa magaalada Hargeysa ka dhacay shirweynihii labaad ee ururka saxafiyiinta Soldier furitaankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka Somaliland iyo wasiirka warfaafinta ee waqtigaasi iyo marti sharaf kale haddaba Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo isagu ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo madashaasi ka hadlay furitaankaasi shirweynaha ururka saxafiyiinta ee Somaliland ee Soldier gudoomiye Ahmed Silaanyo ayaa waxa uu khudbadiisaasi kaga hadlay xaqqa dastuuriga ah ee leedahay saxaafadda iyo xisbiyada qaranka Somaliland ayaan idin kala bixi doonaa iyo xorriyadda waajibaadka ee daawasho wanaagsan daawadayaal haddaba Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo isagu ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa madashaasi ka hadlay furitaanka shirweynaha ururka saxafiyiinta ee Soldier oo ka dhacay magaalada Hargeysa gudoomiye Ahmed Silaanyo waxa uu khudbadiisaasi kaga hadlay xaqqa dastuuriga ah ee saxaafadda iyo xisbiyada qaranka Somaliland ay leeyihiin iyo xorriyadooda munaasabada tan ay ugu dabaal degayaan sanad guuradoodii labaad waxaan la qabaa walaaladeeda iga horeeyay inuu ururkaasi qabtay shaqooyin fara badan maantana ay guul u tahay iyaga iyo shacbiga reer Somalilandba iyo ciddii kale taageero siisayba hadday hay-adaha caalamiga tahay iyo hadday mashaariicda BBC-ga tahay iyo hadday dadweynaha tahay intaba gacan ku siiyey inay soo gaadhaan marxaladda ay maanta taagan yihiin ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay hore uga sii socdaan oo ay guulo taa ka badan ay gaadheen mid ka badan ay gaadhaan waxaan maskaxda ku hayay markii hore arrimo dhowr aan isla adkaadashid runtii balse waxaan qadarinayay codsigii ay noo soo jeediyeen ururka Soldier ay yidhaahdeen maanta waxaanu jecel lahay inay hawshu ku koobnaato
arrinta tan aanu u dabaaldegayno aan mawadic kale oo waaweyna lagu firin inkasta oo haddana arrimuhu soo qaadayay walaalka Faysal Cali Waraabe inuu ka hadlayay aan aad ugu raacsanahay qaybo badan oo kamid ah anigana ay aad i xarantaynayso inaan ku ay qaar labada ka hadlo balse waxba ku tiigaali maayo oran maayo ku fogaan maayo hambalyadan ku kaanaya midda kale waxa weeye waxa halkan ay inoogu sheegay khudbadii madaxda Soldier hawshii badayray soo galeen dhibaatooyinkii ay la kulmeen iyo madax banaanidii saxaafadda ay u dagaalamayeen iyo sida ay ugu guuleysteen shacbiguna u hiiliyay barbarba waxaan isweydiinaynaa waxa weeye waayo cid ay kala dagaalamayeen ee u diidareed madax banaanida wax duruufo dibadda inaga yimid bay ahayd ma wax inaga gudaheena ka yimid bay ahayd ma wax ay shacbigu ka hortaagnaa bay ahayd mise wax xukuumadda ka hortaagneed bay ahayd dee waynu wada ogeyno waynu joogno shuruucdii ay dawladdu soo qadintay barlamaanka la geeyey kaa uu imka Faysal ka hadlayay ee maantana inuu uga baqayno xurriyaddii guud laftigeediiba iyo nidaamkii dimuqraadiyadda ee curdinka aynu ku tallaabsanay kuwaas unbaa kuwa looga baqay ee lagala dagaalamayay ay hiilka badan uga heleen waxa aan leenahay hawl fara badan bay u soo galeen madaxweyne ku-xigeenka waa ka inala fadhiya waxaanu ka codsanaynaa dawladda oo aanu leenahay mar walba in madax banaanida saxaafadda la dhowro xuquuqda shacbiga iyo xuquuqda axsaabta iyo xuquuqda saxaafadda iyo ta shacbi weynuhu leeyahay uu ballan qaaday ama uu siiyey sharciga aad madaxda noogu tihiin ee aan idinku qadarinayno ee dastuurku siiyey inaan marnaba saxaafaddana laga qaadin dadkana laga qaadin weliba lagu dhiirigeliyo waxa aan in badan isweydiiyaa inkastoo saxaafadeennu ay guulo badan soo hoysay haddana wax badan u dhimani wuu jiraa waxaad moodaa saxaafadda inteeda badani inay ku eg tahay magaalo madaxda Hargeysa bareedood maraa dibadda joogay ayaa waxaa la weydiinayay maxaad shacbi weynaha Soomaaliland dadweynaha hadda dawladda tiin hadda axsaabtiin waxba ma gaarsiisaan maxaad u gaarsiin weydeen waxaan u gaarsiin weynay baanu nidhi siyaabihii lagu gaarayay wax awoodi ay naga hor joogsato iyo wax xukuumaddu naga hor joogsato dirkaba way leeyihiin masalan radio Hargeysa inu ka hadalnaa radio Hargeysa waa radioga quree qaranku leeyahay sharciga iyo dastuurku wuxuu banaynayaa oo uu xaq inoo siinayaa in warbaahin xor ah oo madax bannaan ay jirto radioga TV-ga iyo jaraa'idku waxay ka mid yihiin warbaahinta xorta ah ee uu dastuurku ballan qaaday bay ka mid yihiin su'aashu waxa weeye warbaahinta xorta ah ma haynaa dalku maanta ma leeyahay mise waa mada waxna wuu ka leeyahay sida taa maanta inuu dabaaldegano oo ilaahay argaarsiisan waxaanu lahaynina way jirtaa radioga waynu ognahayo waxa la radio kale la furi maayo ka quraabaa jiraya radiogenaasi dalka intiisa badan ma gaadho hadduu gaari lahaana radio aad moodo inaan u wada furayn inuu aragti qura radio xukuumadeedu khaliya uu yahay weeye warbaahinta dawladdu inay tahay warbaahin xor ah ay ka mid tahay warbaahinta xorta ah ee loo siman yahay ee masalan axsaabta iyo dadweynuhu markay aaraacdooda dhiibanayaan ay u siman yihiin ma tahay mise ma aha waa tahay daawadeen haddaan intaasi kaga nimaadno qodobkaasi aadka u xiisaha badan leh ee sanadkii 2005 shirweynihii labaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soldier
ee ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka Somaliland iyo khudbadii uu ka jeediyay Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo isagu waqtigaasi ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaan intaasi kaga tagi doonaa waa tahay waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena xulashada kaydka talow maxaad naga sugaysaan waxaan idin kala bixi doonaa heestii ugu dambeysay barnaamijkeena xulashada kaydka oo toddobaad kasta aad ka daawataan muqbaayaha telefishinka caalamiga Home Cable TV heestaasi oo la magac baxday Samir waxa codkeedii macaana ee tolmana inoogu soo gudbin doontaa aan idin kala bixi doonaa waa fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura ayaan idin kala bixi doonaa kulli in badan ayaa heestaasi la sii raaci doonta in badanna waxaan dib u xasuusin doonaa waayo aan idin kala baxo idinkiyo Hibo daawasho wanaagsan
waa tahay daawadashada qiimaha qadarinta mudan intaas waxaan kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena xulashada kaydka oo toddobaad kasta ka daawataan telefishinka caalamiga Home Cable TV waa filin qaalistii Maxamed Axmed Xuseen Gaabane editkii habeyntii isku dabridkii injineer Xasan Siyaad waxaana barnaamijkani inoo soo saaray oo inoo soo diyaariyay Ibrahim Shiine waxaan idin socodsiinayaan anigu Cabdirashiid Caynta dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu isma dhaafno